Bismillaah, waxaad ku soo dhawaataan maanta sheeko aad iyo aad u qosol badan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in ay murmaan Juxa iyo xaaskiisa. Juxa ayaa hadalka bilaabay, wuxuu ku yidhi xaaskiisii, orodoo dameerka raashin sii, ama wuxuu cuno sii ee quudi dameerka. Naagtii ayaa waxay tiri ma quudinayo, adiga quudi. Markay intaa isku qabqabsadeen ayaa waxaa fikradda keentay islaantii. Waxay ku tiri labadeenna waa Juxa, aniga iyo adiga. Qofkii hor hadlo ayaa wuxuu raashin siin doonaa ama uu quudin doonaa dameerka. Markay intaa ku heshiiyeen ayay naagtii markii fikirkaas keentay, Juxa uu ku waafaqay. Markaas ayay kala aamuseen. Waqti dheer kadib, saacad ama 2 saac kadib, Juxa iyo naagtiisa si u kala aamusnaayeen. Way kala aamusnaayeen wayna is hor fadhiyeen. Waxay ku jireen qolka fadhiga. Intaa markay sidaa u fadhiyeen ayaa waxaa adkaysan weysay oo dul qaadan weysay naagtii ama xaaskii. Xaaskii waa ay baxday, waxay iska aaday deriska, waxay ugu sheekaysay arrinteeda iyada iyo ninkeeda dhex maray oo ah labadooda qofka hor hadla in uu dameerka quudin doono. Markii intaa ugu sheekaysay waxay ku tiri Juxa, anigoo maanta caniid igu jira, aniga oo dhibaato igu jira maanta ma hadli karo, maxaa yeelay dameerka ayuu raashin siinayaa haddii uu hadlo. Markii intaa is dhaheen ayaa gurigii Juxa waxaa u soo galay tuugii. Markuu u soo galay ayaa wuxuu aruursanaya alaabtii oo idil. Guriga wax shanqar ma lahan. Markaas ayuu iska gudagalay alaabtiisii inuu iska aruursado. Wuxuu is dhahay guriga cid ma joogto. Marka ayuu alaabtii soo aruursaday. Markii uu tagay si alaabtii u aruursanayay ayuu asigoo qolalka wareegaya wuxuu galay qolkii uu ku jiray Juxa. Markii uu soo galay, Juxa maba dhaqdhaqaaqayo, ma aha nin hadlayo, waa uu soo fiirinaya oo kaliya, mana hadlayo, waa uu iska fadhiyaa ilaa tuugii uu maleeyo in uu qofkan biyaysanam. Waa uu ag yimid. Juxa markii uu ag yimid oo si fiican u fiiriyay tuugii ayaa tuugii wuxuu is dhahay inuu qofkan basanam uu yahay, uusan ahayn bil aadan. Markaas ayuu wuxuu is yiri baroobay oo koofiyada ka siib, koofiyada u saaran ka saar. Markii uu baroobay, Juxa ma dhaqdhaqaaqayo, weli waa sidiisii. Juxana wuxuu ka baqayaa haddii uu hadlo uu tuugan uu la hadlo inuu dameerka quudiyo. Ma rabo inuu dameerka quudiyo asigana. Waa arrin la yaab leh. Juxa koofiyadii ayaa laga siibtay. Tuugii alaabtiina wuu aruursaday. Koofiyadii Juxana waa uu qaatay. Tuugii asiga oo faraxsan oo isla ninka maanta aad aragtay waa nin sanam ah, qof bil aadan ma ahan. Waa uu iska qaatay alaabtii uu iska qaatay. Markii uu baxay tuugii waxaa yimid wiil yar oo deriska ka mid ah. Wuxuu Juxa u keenay maraq iyo roodhi. Markii uu keenay Juxa, markii loo keenay alaabtii, wuxuu u sheegay wiilkii yaraa in xaaskiisa ay u soo dhiibtay, maxaa yeelay waxay ka baqday inuu ninkeeda gaajoodo. Markii ay u soo dhiibtay alaabtii, Juxa asiga oo doonaya marka Juxa maraqii iyo roodhigii markii loo keenay uusan cunaynin ayaa wuxuu isku dayay in uu rabo inuu u sheego inuu guriga tuug soo galay, sidoo kalena koofiyadiisa la qaatay. Inuu hadlana ma rabo Juxa. La yaab, Juxa markii uu tilmaamayay meelaha alaabta uu ka qaaday tuugii iyo madaxiisa markuu u tilmaamay wiilkii yaraa siduu ugu sheegay Juxa ma ahane si ka duwan ayuu u fahmay. Wuxuu u fahmay sida uu u sheegay ma ahane si ka duwan ayuu u fahmay. Marka ayuu wuxuu u mooday wiilkii yaraa in lagu yiriba maraqan aad wadid madaxayga shub, waayo asaa madaxa tilmaamay Juxa. Juxa laakiin ma uusan ula jeedin maraqa madaxayga shub, laakiin wuxuu ka waday koofiyadiisa in la qaatay. Juxa xanuun dheer kadib iyo rafasho kadib, Juxa marka ayaa wiilkii yaraa markuu arkay Juxa uu xanuunsanaya, markaas ayuu cararay. Waxa uu tagay deriska, ayuu tagay. Wuxuu u tagay Juxa xaaskiisii oo maraqa u soo dhiibtay. Markaa buu wuxuu ku yiri ninkaagii wuxuu u yiri maraqa madaxayga shub, haddana waa uu rafanayay ee meesha ayaan ugu soo tagay. Meeshiis ayuu fadhiyay, mana hadlayo. Marka ayay naagtii yaabtay oo soo qaylisay oo rabtay in ay ogaato waxa ku dhacay ninkeedii. Markay imaaday ee soo gashay guriga ayaa waxa ay ku tiri, waa ay la hadashay. Markaas ayay waxay ku tiri, alla ninkeygii maxaa ku helay, oo waa maxay dhibaatada ku heshay, waa maxay maraqan ood madaxa igaaga shub aad tiri, maxaa dhacay? Markaas ayuu Juxa intuu qoslay uu kor u qeyliyay. Markaas ayuu ku yiri orod oo istaag
oo dameerka wax iska sii ama dameerka raashin sii. Juxa asigoo alaabtiisii iyo koofiyadiisii la qaatay ayuu wuxuu ku yidhi, alaabteydoo dhan iyo koofiyaddeydii xitaa maraqa madaxa lagaga shubay waan dul qaadanaya intaas. Haddii uu ku cajab geliyey muuqaalkan, subscribe noo saar, like-na nagu dhiirigeli. Sidoo kale gambaleelka digniinta furo si aad nooga faa'iidaysatid muuqaalo noocan oo kale oo ku xiiso geliya. Haddii aad awoodid oo kari kartina noo share garaysid.